qaybtii koowaad ee barnaamijkeena waxaan ugu soo hadalnay curashadii dawladdii weyneed ee Cusmaaniyiinta heerarkii kala duwanaa ay soo martay siday ugu baahday daafaha dunida ilaa aynu soo gaarnay iyadoo lagu tilmaamo ninkii jirnaa ee Yurub. waxaana qaybteena labaad maanta uga hadli doonaa sababihii burburka khilaafadii u dambeysay ee Islaamka iyo sintii lagu daray boqortooyadii sakaraadka ahayd misana sababta dhimashadeeda iyo weliba heshiiskii lagu qaybsaday dhaxalkii boqortooyadani. inta aanan gudagelin barnaamijkeena waxaan aad u soo dhaweynayaa saaxiibadeena cusub ee ku soo biiraya channelkeena YouTube-ka iyo weliba page-keena Facebook-ga. waxaan idinka wada codsanayaa dhammaantiin inaad share gareysaan channelkeena si ay dhiirigelin inoogu noqoto una soo badino barnaamijyada xiisaha leh. waxaana 1 jeer idin leenahay dhammaantiin mar kale soo dhawaada saaxiibayaal. caalimkii weynaa ibn Khaldun waxa uu ku sheegay kitaabkiisa al-Muqaddamah in bulshooyinka caalamka iyo weliba dawladaha isbedelkoodu yihiin calaamad ka mid ah calaamadaha Alle, isagoona ku tilmaamay dawladuhu inay yihiin sida noola dhashay isagoo daciif ah misana qaangaara oo awoodeysta deedna duqooba ilaa uu ka geeriyoodo. sidaas si la mid ahna boqortooyadii weyneed ee Cusmaaniyiinta waxay martay heerarkaasi kala duwanaa ilaa ay geeriyootay godkana la geeyay oo la duugay. si aadanuhu waa su'aal badan jecel inuu ogaado ummad waliba geerideeda wixii sababay si uu cashir uga barto uguna dhicin hogaamadow. oo waxay isweydiiyeen aadanuhu maxaa sababay dhicitaanka boqortooyo caalamka ka talinaysa muddo ka badan 6 qarni. taariikhyahanadiina iyagoo xal u raadinayay ka jawaabista su'aashan imaangalka ah ayay daaha ka qaadeen inay sababeen dhicitaankii dawladdii weyneed ee Cusmaaniyiinta asbaabo dhowr ah misana isbiirsaday. waxaana ugu weynaa madaxdii oo daciiftay misana garan weysay ujeedadii dhabta ahayd ee boqortooyada, cadaalad darro iyo weliba musuqmaasuqii oo cirka isku shareeray iyadoo mas'uuliyiinta qaar ay ku kacayeen falar sharci darro ah oo aan waafaqsanin diinta Islaamka. waxaa la duudsaday xuquuqdii dadka, waxaa la daadiyay dhiiggii muslimiinta, waxaana ka dhacay muslimiinta dhexdooda tafaraaruq iyo kala tag, waxaana qolo waliba lagu beeray nacayb ay qolada kale u qaadeen. boqortooyadii dhexdeedana waxaa caado ka noqday laaluushka, wasiiradiina waxay u kala tartameen inay ku dhawaaqaan ka madax banaanshaha boqortooyada. sidoo kale waxaa faaruqay akoonadii dawladda iyadoona ugu dambeyn ku qasbanaatay inay deyn ka qaadato bangiyadii reer galbeedka ayna ku dhacdo dabin ay la rabeen muddo badan reer galbeedku oo waatii la yiri man laa yamliku quwtahu laa yamliku qaraarah. soomaaliduna waa sababtay u tiraahdo nin baahani goob ma aha amaba af wax cuna xisho. maadaama ay dabinkii ku hubsadeen quwadihii reer galbeedka boqortooyadii weyneed ee Cusmaaniyiinta durbadiiba quwadihii waxa ay qabsadeen dhulal badan oo ay ka talin jirtay boqortooyadii deedna waxa ay bilaabeen inay arrimaha gudaha ee boqortooyada faragelin ku sameeyaan. taariikhdu kulka ay 1908 waxa uu ahaa sanadkii ay reer Yurub dhulkii ugu baaxadda weyn leh ka qabsadeen dawladdii Cusmaaniyiinta. si durbadiiba waa uu baraarugay Sultan Cabdixamiidkii labaad oo waxa uu ku dhawaaqay inay qasab tahay inay muslimiintu u midoobaan qatarta ku soo wajahan ee ah dawladaha reer galbeedka. deedna waxaa bulaalay fikradiisii al-jaamica al-islaamiya oo waxaa dunida afarteeda dhinac uga yimid boqortooyadii dhalinyaro jihaad doon ah. sidoo kale waxa uu dhisay Cabdilxamiid iskuulo iyo qad isku xira Turkiga ilaa magaalada Madiina, isagoona ku guuleystay inuu ku soo daro dawladdiisa Serbiya iyo Jabal al-Aswad oo ah laba wadan oo ku yaala bartamaha Yurub. suldaanku intaa kuma ekaanay waxa uu sameeyay dastuur aad u furfuran oo lagu dhaqayay dawladdii Cusmaaniyiinta, waxa uuna bixiyay 90% deymihii lagu lahaa dawladda. indhihii reer galbeedkana waxay soo wada eegeen Sultan Cabdixamiidkii labaad waxayna si hoos u aasaaseen ururo lagu qabta dawladdii Cusmaaniyiinta iyadoona loo bixiyay magacyo guud ka qurxoon si gudaha ka maran sida ururka midowga iyo horumarka iyo ururka dhalinyarada Turkiga. ururadanina waxaa hogaaminayay rag wata afkaarta reer galbeedka iyadoo ayna dabada ka riixayeen ururo kale oo Yahuud ah oo markaasi u arkayay in Sultan Cabdixamiid ka hortaagan yahay inay dawlad iyaga u gaar ah ka sameystaan dhulka reer Falastiin. waxayna xilkii ka qaadeen Sultan Cabdixamiid 1909kii waxaana booskiisa galay walaalkiisa Maxamed Rashaad isagoona ku soo beegmay xilligii ugu xumaa ee boqortooyada. taariikhdu kulkay ahaydna 1914 miilaadiga waxaa dunida ka qarxay dagaalkii koowaad ee adduunka ee u dhaxeeyay dawladihii gaashaanbuurta ahaa ee Faransiiska, Ingiriiska iyo weliba Ruushka, kana dhanka ahaa dawladihii Jarmalka, Austro-Hungary iyo weliba boqortooyadii Cusmaaniyiinta. wejiga koowaad ee dagaalka waxa u suurta gashay dawladdii Cusmaaniyiinta inay guulaysato iyadoo isugu habarwactay dhammaan caalamka Islaamka. deedna waxay amnigeeda la wareegtay
magaalada Dardaniil ilaa Cadan si awoodihii isbahaysiga uu horkacayay Ingiriiska waxay dejiyeen khiyaano ay ugu guuleysan karaan dowladda Cusmaaniyiinta taas oo ahayd in iyaga iyo Carabta la iska horkeeno meeshana laga saaro jihaadka loona bedelo arinkii qowmiyad iyo qoloqolo waxayna Ingiriisku isticmaashay nin Carbeed ee la oran jiray Shariif Xuseen iyagoona u ballan qaaday haddii uu boqortooyada Cusmaaniyiinta jabiyo in loo dhisayo boqortooyo Carbeed isagana madax looga dhigi doono deedna Shariif Xuseen waxa uu ka hor yimid boqortooyadii isagoona la dagaalamay misna dhulal badan ka qabsaday boqortooyadii Cusmaaniyiinta sida ayana dagaalkii koowaad ee adduunka loogu jabiyay boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo waliba xulafadeeda si arinka cajiibka leh ayaa ah in Shariif Xuseen aan loo dhisin dowladii loo ballan qaaday taa cagsigeeda ay waxaaba lagu horqaybsaday dhulalkii Carabta oo Faransa waxa la siiyay Suuriya ilaa koonfurta bari ee Anadol Ingiriiskuna waxa uu la wareegay koonfurta Ciraaq dekadaha Xiifa iyo Cakka ee Falastiin deedna amaanadii iyo dhaxalkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta wuxuu gacanta u galiyay Israa'iil oo waad aragtaan siday maanta u galayaan Israa'iiliyiintu muslimiinta reer Falastiin sidoo kale Ruushkuna waxa uu hoosta ka xariiqday gobolka Erzurum Trabzon ilaa waqooyiga Kurdistan magaalada Izmir ee dhacda waqooyiga Turkigana waxaa qabsaday Giriigii oo kaashanaya quwadihii reer galbeedka qaybsiganina waxa uu sii dadejiyay in saaxadda laga saaro boqortooyadii maadaama lagala wareegay dhammaan dhulalkii Yurub iyo bariga dhexeba dhacdooyinkani tirabeelka ah iyo guuldarooyinkii ku habsaday dowladii xooganeed ee Cusmaaniyiinta waxaa ka faa'iideystay xoogagii mucaaradka ee uu hogaaminayay aasaasaha Turkiyada cusub ee Mustafa Kemal Ataturk oo xilligaasi awood badan lahaa ayaa ku guuleystay inuu gabi ahaanba meesha ka saaro boqortooyadii Cusmaaniyiinta kasbadana qulubtii shacabkii Turkida taariikhdu kolkay ahaydna 24 Juulaay 1923 milaadiga ayaa shir u dhexeeyay dowladihii ku guuleystay dagaalka koowaad ee adduunka iyo Turkiga lagu qabtay magaalada Lausanne ee wadanka Switzerland shirkaasina ayaa lagu jaangooyay xuduudda ay leedahay haatan dowladda Turkiga waxaana qodobadii lagu heshiiyay kamid ahaa inay Turkidu ka tanaasulaan gabi ahaanba dhulka Islaamka kuna ekaadaan xuduudda cusub hantida khilaafada oo dhan in lagu wareejiyo quwadihii guuleystay in suldaanka iyo qoyskii boqortooyada badalka laga wada musaafiriyo marinbiyoodka Bosforna in loo aqoonsado marinbiyood caalami ah oo aynan Turkidu ka sheegi karin dowladaha kale muddo 100 sano ahna inaysan Turkidu qodan karin batroolka dhex eegaaga dhulkooda in dowladda cusub ay noqoto mid Almaani ah kana fog ku dhaqanka diinta Islaamka haddaba daawade arinkani ma waxa lagu tilmaami karaa inuu ahaa heshiis mise wuxuu ahaa baad ay quwadihii guuleystay ka qaadayeen dowladii ay ka guuleysteen si aan su'aashan jawaabteeda u helno waxaa qasab ah inaynu ogaano heshiiskani maxay ka faa'iiday dowladda Turkiga dhanka kale dowladda cusub ee Turkiga waxaa laga qaadayay oo kaliya cunaqabatayntii iyo maamulkii lagu hayay sidoo kalena waxay reer galbeedku ka hadhayeen doodii ahayd in shacabkii Kurdida la siiyo xukun madax banaan haddaba labadani qodob ee loo ogolaaday dowladda cusub ee Turkiga ma u qalmi karaan qodobadii dhowrka ah ee aan kor ku soo xusnay jawaabtana adiga ayaan ku daayay daawade